بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله قيمها لي ميل كستو الدنيا كجوجتان وإن سلام يا وإحنا دين رجينا إن شاء الله تعالى مالنتينا إيه حبيبكينا قلبتينا فيدكينا عسركينا حلقات كجرتان با إنه إدين وناك سنادو إنه إلهي سبحانه وتعالى أولاد إدين حفتيو إنه إلهي سبحانه وتعالى لما أنتنا إلاليو إنه إلهي سبحانه وتعالى جنديسا إنه كليو وحنا الله سبحانه وتعالى ويدي سنة يا قف كستو دباتي سن إنه الله دباتك كقاضو قف كستو مروجيسن إنه الله مروجتك كقاضو أنت كدب ولا ليال وحربا إنه لو ذاقو يبو كم إذا بوغاتا عن قري ورنتي كم إذا بوغاتا نوجع على هاي مت كم إذا بوغاتا نوجع على هاي وأبو كهلا وarbaarinta caruurta sidaad ogtihiin nolosha aasaaskeedu sideedaba oo ummaduhu ku kala hormaraan waxa weeye sida awlaadda barbaarin saxa loo siiyo buugga runtii dabcadii labaad ee la dabco waxa la yiraahdaa sidee ilmahaagu ku maqnaa runtii waa mashruuc 8 sano cilmi baadhis oo aan sameynayay eegayay baarayay fiirinayay talooyinka iyo tusaalayaasha ugu wanaagsan ee ilmaha lagu tarbiyadeeyo buugga kan runtii waa fursad qaali ah waalidiin badan baa ka faa'iideystay insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa maadaama waalidiintu iga codsadeen inaan taxano yar ka sameeyo oon marba qayb yar soo qaato insha allahu tacaala inaan sidaa sameeyo oo marba qayb yar ka soo qaato runtii waa buug fursad dahabi ah waalid kasta oo awlaad haystana aan kula talinayo inuu gacantiisa soo galo wax ka wanaagsan oo aynu dhaqaale ku bixino ma jiro awlaadeen wax ugu wanaagsan aynu u baahan inaan dhaqaale ku bixino waa awlaadeenana waxa ugu muhiimsan ee ay inooga baahan yihiin waa inay tarbiyad saxa ay helaan tarbiyad saxana ma heli karaan haddaan waalidku aqoontii tarbiyadeed uusan helin ilmo iska hagaagaa ma jiraan wax iska toosan nolosha bini aadamka ma jiraan wax waliba dadaalka iyo waqtiga la geliyo ayaa ka soo baxa dadaalka iyo aqoontana dadaalka iyo muxuu ahaa la geliyana waxa ka horeynaya waxaan aqoonta loo leeyahay way mararka qaarkood waa dadaashaa markaasaad wixii natiijadii la rabay imaanin waayo haddii aadan lahayn aqoontii aasaaska ahayd ee loo baahnaa markaa dadaalkaagii ma miro dhalayo sidaa daraaddeed anigoo ah waalid og dhibaatada waalidka ku haysata qurbaha iyo dalkiiba waalid walbana u baahan yahay inuu ogaado oo barto oo tab iyo xeelado wanaagsan u helo sidii ilmihiisa u tarbiyadeyn lahaa ayaa waxaan rabaa inaad hadiyadan qaaliga ah runtii ka faa'iidaysataan meel walba dunida ka joogtaan waa buug aad helaysaan waa idiin soo diraynaa waa dalbanaysaan lacagta ku baxaysaana dhaqaale runtii aad iyo aad u tiro badan maaha waa wax yar aan ma garanaysaa ahayn maalin kafee wax lagu cabo marka runtii buuggan waa buug qiimo badan waa buug ka kooban ilaa 7 qaybood oo soo koobaya tarbiyadda aasaaska ah ee waalid kasta aqoonteeda u baahan yahay si uu ilmaha loo baahan yahay u soo saaro waxaan idinla wadaagayaa qaybta hordhaca ah oo aan maanta ku bilaabayo runtii horta inaan wax rabaa ogaado inaad la fahantaan buugga kan maxaa igu kalifay inaan qoro anigu waxbarashadaydu may ahayn muxuu ahaa barbaarinta iyo aqoonta barbaarinta midnaba markaygii hore maysan ahayn waxaan bartay cilmiga xisaabta maadada xisaabta accountingka maaha sida wax loo xisaabiyo maaha waa maadada xisaabta ee jaamacadaha laga barto ayaan bartay markaas macallin baan ahaa sidaa daraaddeed maysan ahayn takhasuskayga laakiin baahi muuqatay oo aad u ballaaran ayaa maxaa la yidhaahdaa keentay inaan mawduucan wax badan ka baaro ka barto ka eego ka akhriyo ka dhegaysto dadka khubarada ah kadibna soo gunaanado oo buuggan kusoo gunaanado waxaan idinla wadaagayaa 2 qiso cajiib oo runtii igu dhaliyey mawduucan inaan u biyeysto oo aan u dhaqaaqo buuggana way ku taallaa qaybtiisa hore hordhaca ah runtii markaan waddankan aan ku noolahay Denmark markaan imi ayaan maalin anigoo maraya meel waxa jira jidad baabuurtu aan loo ogolayn oo dadka lugeynaya kaliya loo ogol yahay xitaa dadka baaskiilka wata aysan ku socon karaynin jidadka anigoo maraya ayaa horteyda waxa socday family caddaan oo Danish oo nin iyo gabadh dhalinyaro ah iyo gabadh yar oo dhaleen waxa dhacday marka gabadha yar way daba socotay xilli waxay ahayd qorraxdu sii dhacayso way daba socotay
iyaguna way iska socdeen way sheekaysanayaan nin baa dhinacooda dambe socday oo baaskiil isagu aan saarayn laakiin riixaya saa gacanta ugu haya ninkii isagoon arkaynin ayuu gabadha halkaa qoobka uga dhiftay baaskiilkii gabadhii aad bay ooyday maxaa la yiraahdaa way fadhiisatay way ooyday ninkii isagoo ka xun buu wuxuu ku yiri waan ka xumahay maxaa la yiraahdaa umaan jeedin waalidkii anigu marka waan eegay xaaladdan saas u daawanayay filmahaan baan u daawanayay waxaan eegaya oo gudahayga ka guuxaysay haddii adiga aad ahaan lahayd haddii ilmaha yaray ilmahaaga ahaan lahaa maxaad samayn lahayd waalidkii marka gabadhii waxay ku yidhaahdeen dhib ma leh soo soco ninkiina waxay ku yidhahdeen dhib ma le iska dar ninkii wuu iska tegey isagoo ka xun gabadhii cabaar bay ooyday dib umay soo eegin way ooyday markay ooyday way soo kacday way iska soo tagtay oohintii way iska tirtay way iska soo socotay runtii waxaan is iri haddaad adiga ahaan lahayd ama qof kaleeto oo soomaali ahaan lahaa muxuu samayn lahaa wuxuu samayn lahaa ninkaa uu ku qaylin lahaa haddaanuba laba dagaalamin ku buuqi lahaa gabadhaa yari marka maxay baran lahayd arrinta muhiimka meesha ku jirta waa tan gabadhaas waxay baran lahayd in dhacdo kasta si adag looga falceliyo inaan dulqaad la samaynin qofka markuu ku dharbaaxo 3 dharbaax lagu dhifto marka runtii arrin baa iga baxda waxaan is iri sababta keentay inay waalidkani saa u falceliyaan adigana gudahaaga aad dareemaysid inaad saa u falcelisaa maxay tahay gabadhaas runtii maalintaa waxay baratay cashar aad iyo aad u muhiima oo barbaarinta runtii dulqaadku wuxuu yahay bay baratay way ka soo gudbayaa maalin kale anigoo maraya meel xanaano ciyaalka lagu hayo oo ciyaalka yaryar lagu hayo ayaa xanaanada inta badan waxaa joogay caruur ajnabi ah Soomaali iyo Carab iyo ummadaha kaleeto ah